gudagaleynaa oo tramadolka tramadolka waa sideeda banaanba waxa waaye waa daawo loogu talagalay xanuun baabiyo aad iyo aad xanuun baabiyahana way kala qaybsan yihiin heer sare iyo heer dhexe iyo heer hoose sida paracetamolka kaleeto iyo heerka hoose ay galayaan tramadolka laakiin waa daawada xanuun baabiyaha ugu dambeeyo oo la isticmaalo marka daawadaas oo ah xanuun baabiyaha ugu dambeeya la isticmaalo ayaa waxa keentay in hadda dib loo isticmaalo si daraagisan loo isticmaalo marka daawadan horta sideedaba waxaa loo soo saaray oo loo isticmaalaa dadka xanuunada zaa'idka qaba sida qof jaban oo kaleeto iyo qof xanuunka yareeyo iyadoo oo saas tahay ayaa dib waxaa loo isticmaalayaa dhakhtar qoraayo dosageka iyo nidaamkii uu yiraahdo haloo siiyo qofkan ayaa loo siinaa inta badan qofka lama siiyo oo isbitaalka lagu siiyaa inta qof loo qoro dhakhtar qaata lama dhaho inta badan xaafadda ku isticmaalo lama dhaho marka sanadii ugu dambeeyay daawada la isticmaalayo xanuun baabiya ugu fiican waaye waxaan loo isticmaalaa dadka xanuunkooda zaa'idka yahay sida jamniinka iyo waxaas oo loo isticmaala ayadoo dhakhtar qoraayo oo qofka gacanta laga saareen hadda si business ahaan ay u imaaday marka daawadan ku jirnaaye daawada saddex qayb leedahay way ka badan tahay laakiin saddexda qayb ugu wanaag hadda loo isticmaalo waxay tahay waa iyadoo sharoobo ah kaniini iyo cirbad waa saddexdaas loo isticmaalaa marka kaniinka waxaa ka quality badan sharoobada waxaa kasii quality badanayso cirbada ugu dambeysa waa la iska xirxiraya marka saas weeyaan qofka hadii kaniinkii wax ka jira sharoobada in la isticmaalo iyo in loo isticmaalo cirbada marka taas ayaa loo isticmaalaa in qofka xanuunka uu ka jibiyo ayaa loo isticmaala badan laakiin cagsi loo isticmaalaa dosageka iyo dosage la qaan horta qofka dhakhtar u soo qorna isticmaalay tirada inta ka badan maanta dad laba xabo isticmaalo dantu ka leeyahay ay tahay inuu marqaan ka helo oo dareen kale ka helo berito waxa dhacaysa inuu 3 2 4 ka laqo oo dhibaato badan oo kala kulmo meesha doctor fursadda ah in waxaan loo isticmaalo in maanduri ahaan in loo isticmaalo fursadda ah halkee laga dhex arkay su'aal muhiim waaye oo inta badan la isweydiinayo qofka wuxuu aaminsan yahay hadduu isticmaalo daawadaas inuu helayo firfircooni qof happy noqonayo صح ay noqonaa tan labaad oo isticmaalayo waxay tahay in uu qof noqdo howlkarnimo tusaale kale shaqada oo haayo isticmaalo shaqadaas meel u saara dadka jaadka cunaa waxay yiraahdaan waxaan ka faa'iidnaa firfircooni iyo inaan ku dhiirano inaan shaqadii si fudud aan ku qabsano marka ma booskii u gashay mise waa ka awood badan tahay qaad ahaan iyo daawo ahaan dalabay ka saameyn badan tahay marka daawada ahaan ka saameyn badan marka qofkii inuu awood u yeesho awood iyo si wax ku qaban jiray si ka duwan u qabto inuu qof famous noqdo oo happy oo hello haweenku ku maqalna walaal alo doctorku waxa weydiina ma garanaysaa buuga baalka la yiraahdo maaragta buuga iyo waxa u dhexeeya bahashaan xashiiska loo tawaakada asna la dhooqo maxaa u dhexeeya labadooda waa mahadsantahay waa su-aal fiican waa hordhigayaa dhakhtarka waa mahadsantahay waa maqlaysaa doctor ninkaasi waa isku yara farafaadna xoogaa ismaqalkii daawada waxaan kaa codsanaynaa markaad qadka telefonka soo geshid si automatic ayaan isku maqli doonaa iska dami ama iska gaabi codka iska baktiiji halka aad nagala socotid haddii facebook aad naga daawanaysid iyo haddii aad nagala socotid shaashada tv-ga dadka raadiyahana codka inay iska gaabiyaan toos ayaan isku maqli doonaa doctor wuxuu leeyahay ninkaasi maxay tahay farqa udhexeeya tubaakadii caadiga ahayd iyo tubaakadan iyaduna taabuuga su-aal fiican waaye horan oo ugu hadalnay introductionka igu horeeyay tubaakada iyo xashiishkan waxa waaye iyadoo lasoo casriyey waan dib uga hadalnay laakiin tan way ka duwan tahay oo waxyaabo kiimika ku jiro sax nicotine ku jirto oo qofka inta badan farxad gelinayso oo adapted ka dhigayso inuu qofka isticmaalo hadduu maanta isticmaalo birito keenayso inuu qofka isticmaalo marka way ka waxyeelo badan tahay way ka quality badan tahay tabuga ayaa quality badan marka loo fiirinayo xashiishka isagana saameyntiisa habdhiska neefsashada neefmareenada iyo wadnaha uu nagaraaca inta badan way ka sameeyeen laakiin inta badan kana wuxuu sameeyay neefsashada iyo habdhiska iyo kan oo nagaraaca zaidka iyo xataa keeni karta inuu qofka maskaxdiisa ku furo waa maasan tahay markii la yiraahdo tabuga saameyntiisa ugu ballaaran ugu weyn waa kansarka oo ka dhalanaysa oo kansarka ku dhaca afka
haddii uu qofkii si isticmaalo iyo mindhicradii iyo kulli calool ur ku jirta dhan uu kansar saameeyo marka resultigiisa ugu dambeeyo waa kansar isticmaalkiisa sax laakiin inta kaleeto oo inta kansar iyo aynan gaarin waxyaabaha oo inuu wadna garaac keeno madax xanuun iyo qandho joogto ah warwareer raashinka ka go dhibaatadaas uu leeyahay laakiin resulti ugu dambeeya waa kansar meesha lasoo taabanayo waa sii wadayaa su-aashan xoogaa waana ka agdhowdaa su-aashii hore sina way uga yaro dadban tahay magacaygu waa xirsi cumar guutaale ayuu yiri oo jooga muqdisho waa maxay saameynta caafimaad ee taabuu ku leedahay qofka da-da yar ee isticmaalo dadka da-da yar oo ninkaanu si gaara u dul istaago dadka da-da yar iyo dadka da-da ahba waxyaaba badan ay ka sameynaya jira sax markii loo fiirinayo difaaca jirka iyo loo fiirinayo marka qofka da-da yar markii la yihahdo qofka kale soo dhalinyarada ah wuu ka saameyn badan yahay isagaa saameyn badan marka inta badan qofka da-da yar isticmaala wuu ka saameyn badan yahay si fiican da ahaan difaaciisa jirka marka qofka da ahaan iyadoo loo fiirinaynin ayaa haddana qof walba isku itaal haysan ahayn oo difaaciisa jirka isku mid yahay si fiican marka hadduu difaaciisa jirka sii liito uu ugu sii daran tahay aad iyo aad aad u fiican yahay shabeellana aad baan u bogaadinayaa kaabuuga wadna xanuunka inuu aad ugu badan yahay waan aragnay dad badan oo u dhintana waan aragnay dasar uu ku dhacay dad badan oo cudurrada badan ay ku dhaceen oo loo waayo dhakhaatiirta oo saar ay laga yaabeen oo maxay cunteen maxay oxygen badan loo isticmaalay oo xoog koronayna waa arkay ma waxa lagu fiirshay microscope miyaa lagu fiirshay oo lagu ogaaday aaladaas inay aad wax dadku u waxyeeleynayso bas waxa waaye waa mana awaal oo la ogaaday oo waata oo ulfiidii mutaa dadku waa xanuun bayna soo keenaysaa taabuuga ma ka hadlaysaa taabuuga ka hadlayaa ogaadeen ma jirtaa oo aaladaasi waxay ka kooban tahay kiimikada ay tahay iyo waxa dhakhtar soo ogaada ma jira waa mahadsantahay doctor hay wuxuu leeyahay xoogaa ma wuxuu leeyahay inay saameyn leedahay ma wax iska hadal ahaan lagu ogaaday amase wax microscope inta lagu fiiriyey la ogaaday elementiyaasha iyo wax ay ka kooban tahay cabdiraxmaan waa magaciisa maya magaciisana lama wadaago aada umahadsan yahay su-aashu nawdi su-aal muhiim waaye qof walba markii oo arrin laga hadlaayo baaritaan dheeraad u sameyna dabcan sida hadda asaga warkiisa noogu muuqatay oo noo sheega in dad badan wadna xanuun ay u dhinteen dad badan oo soo xigtay marka baaristeeda ilaa hadda way socotaa horta baaristeeda ilaa hadda way socotaa laabkeedii way socotaa maadaama ay saameynteedii aad ay u badatay wadamada ugu badan oo tramadolka baalkaas isticmaala taabuuga iyo isticmaalo waxa waaye kaalmaha ugu horeeya waxaa ku jirta Soomaaliya iyo Masar ayaa aad u isticmaalaan marka ilaa hadda way taagan tahay oo waa raadinayna midda taagan laakiin waxay tahay calaamadaha lagu garan karo iyo dhibaatooyin qofku uu leeyahay wax la arkay oo xaqiiqi ah oo la yaqaano oo qofku dhintay la ogyahay marka meesha aan sii jilcino maadaama ay ku jirto maadada la yiraahdo nicotine-ka nicotine maadaama ay ku jirto nicotine-kaasi in la ogaado qudheedu waa baaritaan loo keenay oo qofka inuu kula noqdo adapted ku noqdo marab uu raadiyo cirbad ahaan qofka hadduu isku diro inta badan qofka waxay jirtaa 7 maalmood 7 maalmood dadka qaar kaleeto 5 iyo 3 ugu yar inta badan qofka jirkiisa ku jiri karto inta badan laakiin 7 maalmood dhibaatada kaleeto oo ugu weyn waxay tahay dadka isticmaala drugskaas isticmaala haddii ay dhacdo even waalidkiisa oo xanuunsan dhiig uma shubi karo oo dhiig asaga laga qaado qofka waalidkiisa laguma duri karo marka heerkay taagan tahay qof maanta waalidkaadu xanuunsan oo saalo saaran haddaadan dhiig u shubi karin inaad si isticmaasho sababta maxay tahay jirkiisa ku jirtaa jirkiisa ku jirtaa hadda odaygii maaragtay waalidkii iyo inta badan loo isticmaalo blood transfusion-kii maaragtay waxay noqonaysaa shuruudihii ay ka hor imaanayaan qofka jirkiisa oo dhiiggiisa wasaqaysan qofka laguma shubi karo marka dhibaato ka weyn maanta ma jirto qof waalidkaaga xanuunsan ama walaalkaaga oo kaleeto aadan dhiig u shubi karin waa maaragtay marxalad bay doctor ay ka xun tahay waad maqlaysaa doctorka hadalkiisa daawadayaal iyo dhegeystayaal
haddiiba mar ay soo gaartay xaalad aan loo shubi karin dhiig waalidka oo ilaahay kuma keene dhiig la-aan u cabanaya waxaa habboon halkeeda inaad ku hakisid haddii alla kugu qaaday markii hore doctore marka faa'iidada dadkan ay ka dhex arkaan meesha oo ay ka dhex arkaan inay isticmaalaan cirbadan bal maxay tahay ayaga oo faa'iido ahaan u arkaya inuu qofkii markuu daawadaas isticmaalo uu helayo firfircooni iyo dadka inta badan isticmaalo ama hawlaha adag qabto kaleeto ayaa isticmaalo si ay u helaan awood dheeraad ah ama hawl karnimo aan kaa dhex galay doctore dadkeenu sideed waagii hore inta badan muruqmaal bay u badnaayeen xoogsito ah dad baa dabaqyada xamar ugu dheer waxaa laga yaabaa inay ku dhiseen shamiito ay gacantooda ku qaadeen iyo bulkeeti iyo dhagax ay ku qaadeen gacantooda iyagoon wax xilligaas ay isticmaali jireen aan la arkin marka sidaa darteed maanta dadkii saas ahay haddii la yidhaahdo laba dabaq waad dhisi karaysaa oo daawadana isticmaalaysaa waxay ku dhiirigelinaysaa soo maahan inay isticmaalaan daawada ay hawshan qabtaan dadka inta badan oo isticmaalka badan dad qaar kamid a xamaali arkaysaa isticmaalaya si awood u helo dalcadaas oo alaabta ku saaro kaleeto dadka dhismaha ka shaqeynayo dadka bajaajta inta badan wadaan oo kaleeto daktarka isagoo mahadsan iyo shabelle waxaan weydiin magacayga waa Bashiir Cabdi Doodi waxaan weydiinayaa dadka hadda cirbadaas oo tramadolka hadda isticmaalaya iyo sharoobada M-Cofta aad u qorinaya ma waxyeelo badan ayay leedahay oo u saameynaysaa wadnaha iyo beerka iyo kaliyaha iyo mase waxa waaye dadka hadda sida qamriga cabaya sharoobada M-Cofta iyo xashiish ma qamriga ama wax la mid ah maxay keeni kartaa qofkaasi noloshiisa ama jasad ahaantiisa maxay falsafad ay ka keeni kartaa ma inuu hadda mustaqbal la'aan ku dhacdo qofkaasi jirkiisa oo deetan ama 7 uu sigaari karin oo ka yar oo dhaco mase waxay keeni kartaa qofkaasi jirro badan in la soo diristo midda kale waxaan weydiinayaa sharoobadan dibka ay keeni karto oo qof hal mar uu wada cabi karo oo M-Coftan oo maskaxdiisu beddeleyso waxyaabo badan oo mandooriyaal daawooyin badan ku dhaqanaya jirta dhakhtarku ma controlay oo ma soo ogaaday waxyeelada ay waxyeelayso microscope badan oo lagu fiirshay aaladahaas sida dhaqaatiir badan oo tijaabiyeen dadkani leeyihiin daawadaasi intaasay dhiba keenaysaa intaasoo waxaa waa lagu arkay in 500 qof lagu fiirshay ama 600 qof inta fahantay Bashir soo koob Bashir waa ku maqalnaa jawaabta ka rabaa waa mahadsantahay hay doctor hay Bashir aad u mahadsan yahay wuxuu ka hadlay sharoobada iyo cirbadii uu ka hadlay marka as medical ahaan medicine aan daawada markii la isticmaalayo waxaan ognahay inta badan daawo waxa soo qor dhakhtar صح وشخصتين description lagu cunaa waxaan u soo saaraa dosage u soo isticmaalaa oo leeyahay sharoobadan waxaa isticmaal doontaa 7 maalmood oo isticmaali doontid 2 waqti ama 3 waqti oo isticmaal doontaa marka dhakhtarka qofka intuu fiiriyo iska dhahay 2 waqti isticmaal iska ma dhahay intaas maalmood ku isticmaal iska dhahay waxa lagu keenay waxay tahay waa baaritaan la sameeyay iyo ayada la og yahay difaaca jirka iyo qaabka uu isticmaaleed iyo cudurka ku haayay loo fiirinayo oo xisaabi conclusion lagu keenayo marka waa dareemi kartaa dhakhtar oo daawo ku soo qoray 10 maalmood inaad isticmaashid sharoobo oo 10 maalmood isticmaashid 8 saacadood kadibna aad isticmaalaysid tusaale kale 2 waqti inaad isticmaasho ku soo saaray hadda hal waqti ku cunto hal maalin xataa ma hal waqti ku cunto waa dareemi kartaa dhibaatada waa dareemi kartaa okay waxa kale oo su'aashiisa kamid ahayd dhibaatada uu leeyahay tramadolka ama sharoobada kale waxa waa dhibaatada keeni karo kaliyaha iyo dhibaataysa iyo meelaha xubnaha vital organs-ka si fiican marka markii uu isticmaalo number 1 maskaxdiisa qofka ay saameynaysaa gartay maskaxaan qofku saameynaysaa midda labaad wareegiisa dhiiga wareega dhiiga qolqolka dhiiga wana garaac oo si ay noqdo waxyaabo badan ayaa qofkii isla markay lagu dareemi karaa gartay oo keeni kara marka si oo alla gooni waayo dhimashadiisa laakiin dhibaatooyinka badan ay keeni karto qofkaasi si degdeg ah waxaa kaloo kamid ah hadduu qofku isticmaalka badiyo xubnaha taranka oo kaleeto
inay howlgab noqdaan ay shaqeyn waayeen oo kale oo qofkii whether female or male labadaba ay isticmaalaan oo noqon kara qofkii waxyaabaha laga dhaxli kara ay kamid tahay in qofkii isbedelo badan ku yimaadaan in waxyaaba xubnihii taranka ama qofkii inuu madhaleys noqdo kale waxyaabaha sababi karo oo soo dedeji kara iyada waa gartay marka daawadan sideeda markii hore maxaa loogu talagalay daawadan markii hore waxaa loogu talagalay oo loo soo saaray dadka xanuunada zaa'idka qaba iyo dadka jaban oo kaleeto ayaa loo isticmaali jiray ayadoo taasna qof la siin jirin oo isbitaalada ku kooban yihiin oo qofka inta badan jeefo ama qof laga ladaam la siin jiray hadda hadda farmashiyo walba doctor markaad tegtid 3,000 iyo waxyaabo la caynkaas ah kiniinigii lagu gadanayaa oo Tramadolka ahaa amaba cirbadihii waxaad arkaysaa rag maaragtay wada haaro laho halka ka wada qaata meel heblaaya dhihi mayna meelo badan oo ka tirsan gobolka aan ku aragna yaa looga baahnaa waxaas inay controlaan wallahi controlkeeda iyo qaabka hadda tan loo isticmaala hadda farmashiyaashii waxay ka noqotay wax sida paracetamolka kale loo iibiyo qofkii u baahda oo lacagta dhiibtana in lagu durayo ayaga duraa marka annaga marka waxaanu ognahay dadka taabuga ka ganacsada ee businesska leh dukaamada leh horta kow ayaga macna ma weydiis qof inta badan qof gado oo isticmaalo ma jiro intaan arkaan oo saas waa inta qof inta la arkin waa okay haddii istaan way yiriin hal ila waay laakiin dadka gado inta badan ayaga ma isticmaalaan mana jeclaan familkooda iyo walaalahood inay isticmaalaan waxay og yihiin saameynteedii laakiin inuu ka ganacsado oo lacagta ku soo bixin direct ugu rabaa marka saameynta weyn meesha kale ka imaanaysa iyo farmasiyaas oo noqotay qofkii inuu sharoobada iskiisa u gadan karo cirbadii idur dhahay والله waxyaabo aad loo xumaay kamid qofka inta lacagta dhiibto maxaa qabtaa lama dhahayo lacagtina uu dhiibina waa la soo diraa oo soo baxaa balka hor qofkaas dee xanuuno kale oo serious oo xanuunka serious ku dhaco oo baaritaan ku imaado waxaan weydiinayaa dadka hadda Soomaalida hadda ay ku soo balaan baxday ay tiraadeen dhikarka aadka u keenay oo kaniinigan oo go'aada ay leeyihiin oo feegaraha waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh magacaygu waa Bashir Doodi haye Bashir hore u soo dadka hadda Soomaalida hadda aad dhikarka ugu batay kaniiniga feegaha isticmaalaya waxtarka saay ka raadinaya bal dhakhtarka taasna iiga weydiiyo adoo raali iiga ah haye waa mahadsantahay doctor kaniiniga fiyaakriga ama feegada iyo dhikarkii ka hadlaya haye bal halkaas hal mar waxaan aad jeclaan topic inaan mar walba aan ku xakiimino aad iyo aad si haddii qof walba topic uu ka hadlo waxa waaye mid furno noqonaya aad iyo aad dadkana ugu faa'iidaan daqadaad inta bixeen dadka dhinac kale ugu faa'iideysan lahaa marka feegar oo kaleeto dadka inta badan oo isticmaala ayagan soo kale awood dheeraad ay u isticmaalayaan inuu awood ka helo oo xagga si uu ka helo marka saameynteedana way leedahay isticmaalkeeda iyo saameynteeda qofka inta badan wuxuu ku yimaadaa 50 gram iyo 100 gram marka qofkii kaleeto inuu dosage ka badiyo oo 200 ka isticmaalo meesha 100 way keeni kartaa batatan ayada dhan waxa waaye adduunka inta badan lagama isticmaalo oo mamnuuc ka tahay laakiin inta badan Soomaalidu way iska isticmaalaan marka dhiikarka qofka dhiikarka qabo aad ugu daranta iyo sokorta qabo kaleeto aad ugu daranta ileen بريشرك ديجي يعني ديجي جراعي والنها مركب وقتي استعمال هكذا سكيتوجيان لأنه سكوب حماس واحد عماه تصنع كل دار منها واتاي يعني هلو السلام عليكم واتاي وكسر عنينا إن وقتك إنه وماركتي قيبي دم إبراهيم كان وكسر سقينا دكتور إن فرمشياشان يوح على روحي أي أركان بإيبينية سيدال ولا تعامل أي سنة هيدين الحساب ضد الدكتور farmasiyaasha oo kaleeto inta badan waxay u arkaan waxyaabihii businesskooda u soconaya inay iibiyaan laakiin saameynta dambe oo ka dhalanaysa noqonaysa aysan fiirinaynin marka waa in la helaa maamul la xisaabtan wasaaradii caafimaadka la xisaabtankeeda inuu meesha maqan yahay marka sharciga mixnadayaasha caafimaadka marka tan oo kaleeto wasaaradda caafimaadka kaleeto inay ka soo saaraan waxyaabo digreeta ay u sheegaan in lagu ganacsan karin aan la keeni karno ka isticmaalo wasiiradda maamusho baarlamaanka waa dhaxaas hortagtay aan soo dheerayn waxay soo saartay go'aan ah in aan dalka laga soo deji karin Tramadol si fiican su'aasha markay isweydiinayaan waxay tahay war Tramadol daawo caadi oo dalka imaado oo aan daawooyinka caadiga la isticmaalo waxba ka duwanaynayeen
laakiin adiga ka dhigay yaa ka dhigay dadkii Soomaaliyeed ka dhigay wax in la isticmaalaan si qaldan loo isticmaalo marka hadhow baahidii loo qabay dalka ay u wali ma jirtay halkeebay ku dambeynaysaa hadii la yiraahdo hal kale ma la helaa waxa yaala hadii wax yar oo xadidin hadii yihiin isbitaal ku kooban waa la xadidi karaa laakiin wax asa business u imaanayo oo business aan u imaan hadii noqoto waxba laga ma qaban karo marka mid kale aan rabo inaan ku daro sida anaga dhaqan Soomaali waxa leenahay hadaa maamul la joogo in la yiraahdo waxaas mamnuuc ay yihiin in la yiraahdo laakiin waxa ka wanaagsan in laga soo saaro dastuur laga soo saaro ama sharci laga soo saaro oo la xakameeyo lagu arko talaabo noocaas laga qaadaa oo ciqaabti iyo loo sheego haday ganax noqoto lacageed haday noqoto xabs haday noqoto in laga noqdo shatiga ganacsi in laga noqdo dan lagu follow up lagu sameeyo dadkii ka ganacsanayna la soo qabto dadka badan way joojinayaan laakiin haday amar noqoto leeyahay waxaan hala joojiyo waxa waaye inaysan joogsanin waa cadda aad u maasan tahay markii laga fiirinayo taboo kaleeto saameynteeda wuu kala duwan yahay ayadoo loo fiinayo age ahaan qofka daada loo fiinayo dadka xanuunada qaba loo fiinayo dad qaaraas waxay saaxiib leeyihiin dhiikarka iyo sokorta ay leeyihiin dan way si isticmaalaan marka qof walbana waxa waaye siba uu nool yahay laakiin inta waxa ugu daran dadka isticmaalo tabuuga dadka qaba sokorta dhiikarka qaba iyo dadka neefta qaba kale way ugu nugul yihiin dadka kale waa in iska joojiyaan way inay joojiyaan laakiin inta kale waxay ka sameeyeen calaamadaha iyo qofka lagu dareemay iyo waxyaabaha ka dhalan kara ka sameeyeen sida neef mareenka oo kaleeto iyo wareega dhiig oo kaleeto inuu noqdo iyo warwareer qofka inuu keeno iyo mid kale ugu daran oo ah qofka inuu isbedel weyn ku yimaado maskax ahaan iyo jir ahaanba mentally or physical iyo labadaba uu noqdo taas ugu daran marka intaas bal xagga kaleeto sidee loo laakiin wax kama kala digto hello السلام عليكم hello bal sidee loo xakameyn karaa marka doctor xakameynteeda waxa loo xakameyn karaa in kow laga bilaabo meelaha businesska u furan yahay oo in laga joojiyo ama ay isku joojiyaan xakameyn hadii la yiraahdo waxay u baahan tahay heer oo maamul u baahan tahay sax hadii noqoto in la yiraahdo dekreeto laga soo saaro waxaan la joogo horta waxay ka soo bilaabanay maamul dawladeed in la helo si fiican kadib hoos u sii noqonaysa kadib waa in la helo wasaaradda ganacsiga wasaaradda caafimaadka kale ay ka soo saaraan kadibna qoladii duulimaadka xitaa kama marna marka in loo sameeyo quality control in loo sameeyo si fiican ilaa inta badan markii wadanka wax soo galayaan laba meel ka soo galaan airport iyo seaport marka tikada hadii la xakameeyo airportkan laga xakameeyo wax wadanka soo galaya inta badan ma laha marka labadaas in diirada la saaro oo loo sameeyo quality control team loo sameeyo teamkaas oo ilaaliyo iyo team kale to ayagana follow up ku sameeyo meelaha laga ganacsada iyo waxa qaabka loo isticmaalo iyo sharci ah qofkii laga soo dejiyo qolada ka ganacsanayso oo lagu qabto in la yiraahdo waxay muteysanaysaa talaabo noocaas ah marka inta badan waxa waaye waa la heli karaa leeyahay 80% waa la heli karaa inuu joogsado ay doctor hello السلام عليكم bal danka kale doctor waxa soo koobaynaa dhibaatada ay leedahay sida looga hortagi karo iyadana tramadolka tramadolka iyadana inta badan waxay ka wada sameeyeen calaamadaha oo kii kaleeto ah drugska wadnaha garaaca oo kaleeto oo zaad noqdo sometimes qofka maskaxdiisa ku furmo kaleeto iyo qofkii oo keena ugu dambeyn in uu xubnihii taranka shaqadoodii gabaan oo qofkii mariis noqdo si female oo male labada inay noqdaan marka saameynta ugu badan waxa waaye halkan lagu soo koobi karo ma laakiin bulshada Soomaaliyeed waxaan mar walba ugu dardaarmeynaa oo ku wacyigelinayna oo meel u taaganahay in ay ka wantoobaan waxyaabaha drugs